kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta aqoon-yahanada odayaasha iyo haweenka ka soo jeeda deegaanada Shabeellada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose ee ku nool dalka Sacuudi Arabiya ayaa xalay lagu qabtay hoteelka Burji ee magaalada Tanjida. kulankaasi oo si weyn loo soo qabanqaabiyay ayaa waxa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay mudane xasan sheekh cusmaan gasba waxaana uu ka warramay ahmiyadda ay leedahay munaasabadani oo uu ku tilmaamay inay tahay mid waqti dheer ay sugayeen dadka u badan deegaanadaasi. waxauna daboolka ka qaaday in dowlad goboleed lagu magacaabo Udubland loo sameeyay deegaanadaasi. mudanaha oo umurahaasi ka warramayayna waxau yidhi caawa oo ay bisha islaamku tahay 14 mawlid ama rabiic al-awwal sida loo yaqaan 1432 hijriya Gregorianka ay tahay 17 bisha labaad 2011 waxaan si gaar ah ku mahadinayaa dhammaan martida sharafta leh culamaa diin siyaasiyiin aqoonyahan haween dhalinyaro kuwada kulmay munaasabadan oo aan jecelahay inaan si gaar ah uga hadlo. waxa meeshaan isku keenay inaan ka qayb qaadano farxadda ah ku dhawaaqida maamul goboleed oo in badan la sugayay. waxaan doonayaa marka hore goboladaasi oo kala ah Shabeellada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose عرتي محل لو بحية هذا وأدوبلاند وحاولا وحصوصار كودا إن يدفن كران دلك الصومالي إنتي زكري mudane xasan sheekh cusmaan gasba waxa uu sidoo kale ku nuuxsaday in go'aankaasi ku dhawaaqida maamulka cusub uu ka dambeeyay dhibaatooyin fara badan oo uu loo geystay dadka ku dhaqan deegaanadaasi tan iyo intii jahawareerku ka taagnaa dalka. waxauna ugu baaqay dadweynaha ka soo jeeda deegaanadaasi inay la yimaadaan howlgal dhaba islamarkaana ay ka faa'iidaystaan kheyraadka beeraha, xoolaha iyo qeybaha ay caanka ku yihiin deegaanadaasi. sidoo kale aqoon-yahan cabdalla unturo oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in dadka deegaanadaasi ay sameeyaan iskaashi islamarkaasina wax kasta ay ka horumariyaan danaha guud ee goboladaasi. si kastaba ha ahaatee kulankaasi ayaa waxaa sidoo kale lagu marti qaaday qaar ka mid a beelaha Soomaalida ee ku nool dalka Sacuudi Arabiya. cabdiqaadir cali maxamed qayska Home Cable TV, Jidda, Sacuudi Arabiya.